tan iyo markii uu qarxay khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul ee ugu sarreysa Soomaaliya waxaa sii xoogaysatay kala shakiga iyo istuhunka labada dhinac qaraxii beledweyne ka dhacay ee lagu beegsaday Allah u naxariistay xildhibaan Aaminu Maxamed Cabdi waxa uu banaanka keenay sida ay suurtagal u tahay in la beegsado qof waliba oo ka aragti duwan kooxda madaxweyne Farmaajo inkastoo qarax xildhibaan Aaminu lagu dilay ay fulintiisu sheegatay kooxda Al-Shabaab haddana hadal uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ka jeediyay madal loogu barordiiqay ayuu ku sheegay in xildhibaan Aaminu ay dileen isla kooxdii ay gacantooda ku baxday sarkaaladii sanadkii hore la waayay Ekraan Tahliil Faarax taasi oo loo tiriyay in ay ku maqan tahay gacanta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo iyaduba ka tirsanayd sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in laftiisa loo soo hanjabay loona soo diray fariin halis ah wuxuuna sheegay in uu wajahayo khatar amni kadib hadalkaasi wasiirka koowaad ee xukuumaddu waxa iska soo dabadhacay walaaca laga qabo ammaanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxda la aragtida ahba iyadoo loogu baaqayo inuu sameeyo taxaddar iyo feejignaan dheeraad ah arrinta ayaa sidoo kale sii siyaaday kadib markii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA faafisay war ay ku soo baahisay baraheeda bulshada kaasi oo ay ku sheegtay in dil la damacsan yahay ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo nin magaciisa ay ku sheegtay Maxamed Maahir isla mar ahaantaana sida ay hay'addu ku doodayso ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayay sheegtay inuu yahay ruuxa fulinaya weerarka la damacsan yahay madaxda sare ee dalka balse fariintaasi ayaa dhalisay tuhun weyn oo ah in hay'adda lafteedu wado qorshe loo maleegay ra'iisul wasaaraha maadaama ay nisu tahay xarunta gacanta ugu jirta kooxda madaxweyne Farmaajo waxaana tuhunka sii xoojiyay diidmadii Al-Shabaab ay shalay soo saartay ee ahayd in aanu jirin ruux iyaga ka tirsan oo wata magaca ay hay'addu baahisay kaasi oo beegsanaya madaxda sare musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo ay hormuud u yihiin Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si weyn u naqdiyay fariinta NISA iyagoo nasiib darro weyn ku tilmaamay in sida ay wax u tabiso hay'adda u xil saaran ammaanka dalka amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa si weyn kor loogu qaaday oo ah halka khatartu ugu badan ay ka jirto waxaana sidoo kale la bedelay qaar ka mid ah saraakiishii ilaalada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoona lagu bedelay kuwa kale oo aad ugu dhow hayb ahaan wasiirka koowaad ee dalka tan ayaa dadka siyaasadda falanqeeyay ay ku sheegeen in ay tahay mid aan la dhayalsan karin oo horseedi karta qallaase amni oo aan la qaadi karin xilligan oo xilli kala guur ah dalkuna isu diyaarinayo doorasho lagu kala wareegayo hoggaanka sare ee dalka